بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورالهيga qaaliga ah waa Sahra Fashion oo mar kale idin leh soo dhawaada insha Allah. maanta waxa idin wada oo aan jeclaa inaan idin faahfaahiyo waxa la yiri waxa walaalkaaga wax yar aad uga faa'iideyn karto uga faa'iidee geedkan aan hayo waxa la yiraahdaa qusul hindi. waxa la yiraahdaa qusul hindi insha Allah ilaaha dawada bixiyo laakiin wuxuu daweeyaa dhowrkaas cudur waxaa kamid ah anigana aan tijaabiyay waa marka koowaad macaanka. Soomaalida waxay u taqaan macaanka, dad waxay yiraahdaan sokorowga, English waxa lagu dhahaa diabetic. Okay, marka intaas aan uga gudbo saddexdaas uu daawo u yahay insha Allah. marka waxaad sameynaysaa qofka macaanka qabo markuu rabo inuu bahalkan isku daweeyo. horta bahalkan waa budo, dhexdiisana waa idin furayaa. waa budo waxaad sameynaysaa subaxii waaga markuu bariyo duu ilaahay karaali noqdo alasaydi markaad dukato kadib salaada subaxda ilaa ay 1 saac qaada ayaad waxa ku shubaysaa koob. waxa ku dareysaa qaada malab ah oo malab saafi ah ilaan qofka sokorta qabo malab kasta ma cuni karee. markaad ku darto qaada malab ah iyo qaadadii qusul hindigan waa isku garaacaysaa wax yar shaaha ku dareysaa soo u jilco ilaan dhuunta ma maraaye. marka waxa sameynaysaa halkiyaal qalam asinaysaa kastiyareeda cabaysaa mana badno waa koobka salkiisa. saas markaad sameysid insha Allah marka waxaad sameynaysaa haddana habeenkii markaad seexan rabto waxaana fiican sida u bilowdo inaad u wado markaad seexanaysid isla sidoo kaleeto qaada malab ah iyo qaado qusul hindi ah. bahalkan aad u qaraar badan yahay uu ur badan yahay laakiin dawadiisa ma sha Allah tabarakallah aniga gabar kala tijaabinay waliba gabadha kale wixii qabtay buro ma sha Allah shiqa wuxuu ku yiri shiqidan waa weyn quraanan kugu tufaaya bahalkan niyeyso ina ku caafimaadaysid bura gabadha uga taal dhigtoosteeda ma sha Allah way baabada ma dhahaay laakiin 3 bil markay waday burada aad u weyneed way yaraatay. markay yaraatay gabadha dawaab loo operation Soomaaliya la geeyay laakiin ayadoo yara laga jaray awalna ma qaadi karin burada aad u weyneed. okay waxa laba saddexeeyo taas waa taas dhiikarka waxaan igu maqaalaa dhiikarka anigu ma daweyn laakiin dhiikarka waa u daawo cidii waxa la yiri qaado sidaas oo kala sameynaysaa subax iyo habeen waa isticmaalaysaa dhiigaaga dhan dhulku geeyna haduu kacsanaa. saddexdaas marka aan waxaan u ahay marqaati insha Allah waxa kale igu maqaala ah kansarka ilaaha daweyn kar ilaaha naga haynta islaana waa cudur xun laakiin waxa maqla qofkii wada ilaa 6 bilood oo daa'ima kale warbu ka keenaya waa huba ma dhahayo laakiin cudurka kansarka isagana waxa maqla in lagu daaweyn karo balse waxaan aad u hubaa macaanka gabdho badan oo walaalahay isticmaalay oo aan aniga kamid ahay aad u fiican yahay sokortaada dhulkay tagaysaa haddaad daawo isticmaal oo aad wax kasta isaga cabto habeenkina aad cabto 3 bil ama 2 bil gudeed wara iga soo siinaysaa sokortu way ka haadee ma sha Allah tabarakallah gudihiisa idin furaaya waa idin tusinayaa marka sidoo u yaalo. horta wuu ur badan yahay ma sha Allah tabarakallah laakiin nafta ugu hadii lagu yiraahdo waxa ku daawo waa in isticmaasho ujeeda sidoo u yaalo wuuna qaraar badan yahay wuuna shir badan yahay ma fahamtay. laba noocna wuu leeyahay mid fur gaduudan aniga dukaanan ka soo gadan jiray mid fur gaduudan oo warqada midkan ku dhagan isagana ay gaduud tahay sawir ahaan idin kugu soo diraa iyo mid kale oo saddexaad wuu jiraa oo la yiraahdo qusul xamar. ay doono qusul xamarku wuxuu daaweeyaa laakiin isagu u shir egyahay isagu shaabaha waxayru ka waaweeyaan waa jariir camal cidi taqaan jariir waxyaabaha waaweyn la dhahaa laakiin aniga waxaan tijaabiyay kan waxaan kale idinka hilmaamay infectionka for example waxaan iska nahay haweenka infectionkoodu waa iska badan yahay. infectionkana waa lagu daaweeyaa dhabar xanuunka infectionka caado wareerka waxyaabo badan oo daawo u yahay wixii ilaahay daawo kugu daraayana waa daawo. marka waxa idin dhihi lahaa loo dayma la'aanin walaalahayga qaaliga ah waxaan jeclaystay waxaad adiga isticmaashay oo aad walaalaha u faa'iideyn karto u faa'iideey wayna fiican tahay in wax walba la soo gaarsiiyo sida la isu dhaamo. hal aayad maanta hadaad taqaan walaalka u sheegta ajira kaaga socda insha Allah ka faa'iideysi wacan. waxaa la yiraahdaa magaciisa qusul hindi
aniga ma gado laakiin waxaa lagu gadaa dukaaman cidii rabto dibadda joogta ama meelo fogfog way isoo weydiisan kartaa waa ku saacideyn karaa inaan usoo gado ama kaargo usoo dhigo cidii taqaano isticmaashayna wayba isticmaashay cidii joogta aniga hadda Kenya joogaa Kenya joogtana I think majority dadka inay yaqaanaan qusul hindiya la yiraahdaa waa geed aad u qaraar waa geed shiir badan laakiin dawadiisa maasha Allah ay tahay dawadiisa wax aad iskaga fahmaysaa waxa kale oo arkay wiil kala maalin isticmaalay adiga dhowr bilow waday wiilka waxa arkay uu cajile markaan dhahay war heeda waa caayishay wuxuu yiri qusul hindiga wuxuu furaa appetite-ka wuxuu yiri waan baahdaa been ma aniga markaan isticmaalo waan baahdaa laakiin dadka waxay kala yihiin lazy aniga lazy aan ahay waxa laga yaabaa qaraarkiisa urkiisa inta dhibsado aan maalmo daayo mar aan cuno mar aan daayo laakiin wiilkaas joogto uu cunay ma sha Allah wuxuu ugu yiri abaayo wuuna cayile wuuna gaduutay infection uu roon yahay kulli asoo wuxuu cunay Allah og ma ana wareysan laakiin ku cayile taasaan ogay marka ka faa'iideysi waan walaalahayga qaaliga ku soo dhawaada channelka cidii aan nala soconin subscribe cidii hore ula socotayna like share and comment insha Allah barakallahu fiikum wa walaashin mar labaad sahra oo idin leh welcome ha u dayma la'aanina qusul hindiga waa ka soo yaala dhaxda kulli waa iskaga bid laakiin waxay ku kala duwan yihiin caaga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh